thank Robert Lilligren for his 12 years of service. This was a tough. This was a tough campaign, but it was never personal, and it was never. We never tried to make this other than the issues. So I'd like to thank again. Round of applause for Council Member Robert Lilligren. And I'd also like to thank our volunteers who made history. We had more than 200 volunteers. Some of them are here. They are the real story of this campaign, that an immigrant from Somalia who lived in Cedar Riverside, who was working class, can now be the city council member for the city of Minneapolis. That is the story. One minute. Now, I would like to also thank all our friends. I'm not going to mention names because if I mention names, it will take me all evening. I have a lot of friends, and I have a wonderful family, and I have wonderful people, and I have wonderful support, and I thank you. And that's about it. To my East African brothers and sisters, to my traditional American brothers and sisters, to the people of Ward 6, I will do my best, to the best of my ability, to represent everybody in Ward 6 equally, regardless of race, gender, sexual orientation, economic class. I will represent everybody in Ward 6 equally. Now, the hard work starts. Let's celebrate. Let's enjoy ourselves. But now we have the hard work. Thank you very much. All right. Now I didn't prepare a speech, so I'm gonna recognize a couple of people. My two favorite politicians in Minnesota. One of them is with us. Senator Kerry Dzak. Where are you, Senator? Senator Kerry Dzak. My other favorite politician, she's not here with us today, she's away. Her name is Phyllis Khan. And Representative Phyllis Khan and Kerry Dzak here were the first representatives to support us. They were the first. Now, I want our supporters to remember these ladies. Remember these ladies. Because they believed in us and they believed in me when very few believed in us and believed in me. So I want you to remember them, I want you to thank them, and I want you to support them. So thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan horta u mahad celiyo dadka dhan oo na taageeray. Mana rabi inaan magacyo sheego, waayo dad aad iyo aad u fara badan baa na taageeray. Waa mahadsantihiin, waa taqaaniin dadkaa tihiin, idinkaa iskale campaignkan, idinkaa maanta intaan qof isku keenteen, marka waa mahadsantihiin, waa kow. waxaan rabaa inaan la hadlo shacab weynaha oromada oo maantay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacab weynaha Soomaalida oo ayakuna aad noo taageeray, laakiin
horta haddeer doorashadii waa aragteen waa soo baxday maxaa la dhahaa nambaradii laakiin weli waan sugaynaa ilaa natiijada dhammaadkeeda kalsooni badan baa ku qabnaa inaan doorashada ku raynay waana mahadsantihiin waxaana ognahay inay tan tahay fiiri tan fariin bay tahay markaan hawshaan bilownay waxaana la ku yidhi ma samay kartiin nin oday oo maaragtay dalkan u dhashay oo ku dhashay kama rayn kartiin 15 sano meesha hayay ma la tartami kartiin adameeyo waxay tan fariin u tahay guuldaradii 21 sano na haysatay haddii maskaxdeena aan isticmaalno ilaahayna tala aasaarano wax kasta iyo meel kasta waa gaari karnaa marka hawshaan ma ahan cabdi warsame baa raayay waxaa raysay shacab weynaha East Africaanka ah iyo dadka degan degmada lixaad ee magaalada Minneapolis cabdi warsame maanta wuu guuleystay ilmihiina gobernatorayaasha gobolka Minnesota ayay noqon karaan una tartami karaan laakiin waxaa jirto culays badan iyo dhibaatooyin badan oo annaka dhex jirto wiilashii dhintay haddeer yarkii maalintii way dhintay Cabdiraxmaan Axmed ilaahay u naxariisto hooyadiis Caasho habeen iyo maalin bay nala shaqaynaysay waxaana rabaa inaan u mahad celiyo waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo adeer oo Maxamed Jaamac oo asna naga geeriyooday oo asna na taageeri ilaahayna asaga u naxariisto labadaas qof iyo intii wiil oo la dilay maalmihii daweeda la soo dhaafay 5 bilood la soo dhaafay dhibaatooyin badan baa jiro dhinaceena annakaana mas'uulka ah annakaana xalka raadi karno qof kale ma noo raadi karo laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego waan idin ballanqaaday markaa tartamayay hay'adaha dawliga ay ugu horeeyaan askarta iyo booliiska waa la xisaabtami doonaa mana dhici karto inay laakiin waxaa la idinka rabaa shacab weynaha qowmiyadda East Africaanka waxaa la idinka rabaa inaad dadaashiin waa aragteen dibkaan u marnay inta timahayga horta way cadaadeen laakiin ogaada codku waa awood weeye codku wuxuu la siman yahay inaad lacag leedahay maanta ninku ugu lacagta badan gobolkan iyo magaalada Minneapolis iyo idinku waa siman tihiin because hal cod buu leeyahay idinkuna hal cod baa leedihiin marka codkaan yaa la yaraysan waxaana yaraysto ma ahan dadka waayeelka waaweyn ee waxa weeye dhalinyarada Barcelona iyo Real Madrid baa ku mashquulsan tihiin Messi ma idin yaqaano waa inaa idinku codaysiin oo u hilisiin hooyooyinkiin imaamooyinkiin maanta hadday dhalinyaradeen dhan soo bixi lahaayeen 10 kun oo cod baan heli lahayn magaalada Minneapolis duqa magaalada annaka dooro lahayn taas waa next time laakiin haddeer waxaa rabaa inaa ogaatiin waa guulaysana Soomaaliyano waa inaa codaysiin waa inaan ka taganina diintiina iyo sharaftiina iyo magaciina waa mahadsantihiin thank you waxaad kusoo dhawaataa Summit TV Saturday Live barnaamijkeeni kulanka sabtida ee Saturday waxaan ku falanqeynaa barnaamijyadeena waxyaalo kala duwan arrimaha bulshada caafimaadka iyo dalkii maanta waxaan kusoo qaadanaynaa doorashooyin ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa nala fadhiyay stuuriyaha uga barateen Maxamed Xuseen Maxamed Timir oo noo daadin jiray iyo engineer Daadiro waxaad kusoo dhawaataan Summit TV waxaa maanta farsamada noogu fadhiyay Maxamed waa mahadsan tahay howl culusna haya Summit TV oo u taagan har iyo jeer jaaliyada inay waxyaalaha socda adduunka iyo dalkii iyo intaba inay wargeliso doorashooyinka kaalin door leh ayay ka qaadatay jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Minneapolis iyo daafaheeda waxa ay ka dhidhiyeen in ay u dul qaadan karin dhibaatooyinka har iyo habeen ku socday haday noqoto xagga guryaha public housingka dadka waaweyn waxaa filaysaa marar qaarkood in meesha cod aadan ku lahayn adoo maanta Soomaaliya Soomaali Americana citizen waxa aad kelig haysataa oo
wax ku qaban karo waa codkaada ma aad wax ku bedeli kartid marka maanta waxaan ku falanqeynaynaa kaalintaas ay ka soo baxeen ayna ka dhiidhiyeen maxay tahay maxaa ku sababay qaybteen hore kadibna waxaan u gudagali doonaa qaybta dalka Soomaaliya doorashooyin ka dhici doona magaalo maamul goboleedka Puntland waxaan su'aashay ugu horeeyo aan weydiinayaa engineer waxa ku soo dhawaataa Saba TV maxaa la yiraahdaa barnaamij badan baa nala falanqeysa maantana waxaan jecelnahay doorashada dadka dareenkoodu suu yahay jaalida min Soomaaliyeed ee Minneapolis maxayna u soo hooysay doorashada dhacday lagu doortay Cabdi Warsame ما شاء الله marka hore aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiinba bahda Sama TV adeega aad bulshada Soomaaliyeed ee North America aad u heysaan iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed haddii aan arrinkaas jawaabkaas iyo marka hore waxaad aragtay muwaadin Mareykan citizen ah oo Soomaali American ah inuu ku guuleystay Ward 6 taas horta waa hambaliyo aad iyo aad u weyn shacabka Soomaaliyeedna waxay maaragtay Minnesota degan gaar ahaan magaalada Minneapolis awoodii iyo codkii ay bixiyeen ayaa waxaa ka soo baxay guul shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunyada ay ka joogaan u soo hoyatay sababtoo ah Cabdi Warsame waa ninkii bilaabay in la soo xiro zoonkan dadka maaragtay minority ay degan yihiin Soomaalida iyo Oromada iyo Etoobiyaanka iyo dad walba East Africa ka yimi taasna waxay abuurtay inuu helo cod kalsooni buuxda oo 1 to 2 hadaa fiiriso meeshii uu ninka maaragtay ninkii la tartamay Mr Graham oo ka helay 1 oo halka helay isaga wuxuu helay 2 so 1 to 2 marka waxaad garanaysaa limitka rank ayaa loo isticmaalayay oo loo count gareynay marka meeshuu isaga halka helay oo Graham halka helay Cabdi Warsame wuxuu ka helay waa 2 ama 3 ayuu marmarka qaarkood u dhigmaysay sida loo sameeyay maaragtay nidaam cusub oo maaragtay aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa tan labaad waxay ka bedelaysaa bulshadan magaalada degan inaan helno waxyaabo fara badan oo maaragtay xuquuq aan markii hore meel loo marin lahaa sababtoo ah ninkan 12 sano ayuu meeshan joogay shacabka Soomaaliyeed ee gobolka degan gaar ahaan magaalada Minneapolis deganna xiriiriga iyo dhibka hadda maaragtay way qabeen mar caruurtoodii maaragtay ay xabado isku laayaan maaragtay uusan waxba ka qabanin waxay u badan yihiin dhibaatooyinka maaragtay shacabka Soomaaliyeed soo gaaray dhibaatooyin ay haba yaraatee haddii ay heli lahayn qof Soomaali oo Cabdi Warsame oo kale ah in wax badan uu bedel lahaa laakiin hadda waxaad arkaysaa in uu sameeyay victory Cabdi oo ah guul uu ku gaaray codkii ay bixiyeen dadka Soomaaliyeed haddii aysan codkooda bixin lahayn voice is a power voice kaad arkaysi waa maaragtay waa awood wax bedeli kara oo change sameyn kara so marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maalintii horena halkan dadkii maaragtay engineer aad wareystay waa kamid ahaa waxyaabihii uu maaragtay Cabdi sameeyay dartood ayuu guusha ku gaaray waxaan jecelahay inaan u soo laabano su'aasha Maxamed Xuseen Timir waa ku soo laaban doonaa su'aal kalena doorashooyinkana ka weydiina waxaan jecelahay inaad Soomaalida guusha maanta yaa ka jawaabto dul martay guusha say ma qayb kamid ah Soomaalida bay adiga guusha gaaray mise Soomaalida oo dhan baa jamcahan xataa dadka daafaha degan dadku way badan yihiin gobolka Minnesota waxay degan yihiin county-yada kala duwan Anoka Ramsey run ahaantii guusha hadda Cabdi uu halkan ka gaaray Minnesota ahaan markaan fiirino waa guul shacabka Soomaaliyeed dhammaan u soo hoytay Mareykanka oo dhanna markaan fiirino waxaa kaloo jiray nin kale oo isagana state-ka la yiraahdo Georgia
oo Soomaali ahaa Axmed Xasan. Axmed Xasan oo isagana guul sidaas oo kale ah gaaray marka shacabka Soomaaliyeed dreamkii ay halkan ku yimaadeen iyo maartay guushii ay halkan u yimaadeen inay gaaraan iyo hamigoodii absolutely inuu shaqeeyo waa garan kartaa صح marka voice is a power doorashooyinka dambe oo soo socdaan waxaan rajeynayaa haddii la yiraahdo in dad sidaas oo kale ah Cabdi Warsamo oo kale ah oo aan taageerno inay soo baxaan waa ku mahadsantahay waxaan rabaa Timir ila ku weydiiyo Timir waxaad u taqaanaan in Saba TV oo ay ka yahay oo xagga ka hadla arrimaha Soomaaliya laakiin mid kale ayuu doorashada ku jiray wuxuu ku jiray doorashada qaybta madaxda xeer ilaaliye ahaan oo doorashooyinka dhacaya Minneapolis Timirow waxaa ka warataa dadku markay ku imaadaan waxyaalaha aad iyo aad markaa la kulantid waxyaalaha aad ka maqleysay dadku markay imaadaan waxaan filayaa in aad ka maqlay adoo dhaysid magacyada Soomaaliya ka baaranayeen laakiin waa ka tagayeen marka maxay leedahay caqaba ah عبد الكريم هورتا qofka aanan bixin doorasho marka ugu horeysa عبد الكريم aad iyo aad baa u mahadsan tahay injineerna aad buu u mahadsan yahay runtii aad buu u sheegay laakiin anigu midaan ku dar lahaa su'aashaadana u soo noqonay waxa weeye horta marka ugu horeysa waa in dadka ogaadaan Cabdi Warsame waxaa laga doortay oo kaliya Ward 6 qaybta lixaad baa laga doortay qaybta lixaad buu mas'uul ka noqonayaa dadka degan qaybta lixaad bay saameynaysaa marka maadaama ay weyn tahay degmada Minnesota ay weyn tahay Cabdi Warsame qaybtaas ku guuleys waana guul oo runtii waxaa jirtay system cusub oo ku soo biiray hadda doorashooyinka hadda la socotaan oo la rank Jones oo ah saddex qof baad qofkiiba uu dooranayaa waana system hadda Soomaalidu ayaantii hore anaga xataa hawsheeda aan qabanay oo aan u sharxaynay waxaana loogu talagalay systemkaasi haddii codkaagu uu meel ku lumo cod meel kale inuu ka soo baxo marka runtii guul weyn baa u soo hoyatay Cabdi Warsame laakiin waxaan faraynaa isaga inuu mas'uuliyadda qaado inuu degmadaasi lixaad dadka degan caafimaadkii mataqaana waxbarashadii amnigii inuu mataqaana uu dagaalamo ganacsigii inuu dagaalamo kulli inuu motivation dadka gasho dadkan waxaa laga rabaa inay taageeraan isagii oo ay sidii ula jireen ilaan waa bilow maanta waxaa dhici karta berri Soomaaliya inay u ordo aniga marka waxaan ahaa qaybta Agasper la yiraahdo oo Starbucks ku dhow oo codeynta ka bixisaan waxaan ka judge kun macnihiisu waxa weeye waa dadka imaanaya ee codeynaya waa in la qoro ID-gooda iyo address-kooda dadka check gareeyaan hayn marka waxaan seenaynay ballotkii uu la tegay meel banaan waxa igu aad iyo aad aan u dhiirinaynay Soomaalidu siday isugu jiraan waxay ka baarayeen ballotka magacyo Soomaaliyeed marka gabar baa igu soo noqotay oo tiri hebel aaway marka waxaan ku yiri waarka degan tahay ma degana waa mahadsan tahay waarkan baad ka codeynaysaa marka iyada laftigeeda motivation kaas dadkii ka maqnaayo hogaa waxay ku jireen waxay u mareen Cabdi Warsame in degmo walba miska laabatay way codeysay waxaan coday because waarka degan tahay ma ahan Ward 6 waxaan aniga joogay Ward 2 iyo 9 baan joogay marka Ward 6 waa naga dambaysaa marka waxaan adigu maadaama inta tahay address-kaaga intuu yahay intaad ka codeynaysaa Soomaali kale Ilaahay siinaya Cabdi Warsame oo uu codeynaya waa loo codeynaya marka waxay bilowgay dadka mararka qaarkood doorashada si ay ugu nuglaayeen ma codeynta xataa haddaadan uu ahayn codeynta ka waran caqabad ku noqon kartaa in the future hadduu qofku codeynayo wallahi waa caqabada kuma noqonayso horta markii sanadihii hore Soomaalidu aad uma yaqoonin codeyntaani waxaana yaraa sitiisa ka yaraa laakiin waxaa u malaysaa xataa Soomaalidii intii wax baratay ardadii jaamacadda dadkii ka shaqeynaya organizationada ururadaani inay mataqaana la qabsanayaan sida dadka meeshan degan oo kale midaada kale Cabdi Warsame Soomaali kaliya ma dooran South Africa oo dhan baa dooratay ilaa dad multicultural waddanka degan East African multicultural baa degan cadaan iyo madow dadka oo dhan baa wada doortay wuxuuna ku keensaday baan filayaa waarkaasi macnaha muddooyin baa waxaa laga maqlay isaga meel buu tagay wuxuu qudbeynay ujeedada loo dooranayo marka dadku hadda motivation inay heleen baa u malaysaa inay fahmeen inuu codkoodu qiimo leeyahay balse hal mid baa dadku sheegi lahaa waxaan u sheegi lahaa dadku markuu codeeyo oo uu cod ka dhiibto inuusan eegin magac inuusan eegin qabiil inuu eego Soomaalnimo because markii aan qurbahan joogno Soomaali baan nahay
soomaalida in la fiiriyaa fiican in mataqaana la yiraahdo waa yahay haddii adigu aad heli weysay ninkan kale Soomaaliyeed ha helo si aan beri oo la xisaab waayo dadku cadaanka iyo sabay subshan waa in codkaagu codkaagu waa inuu noqdaa cod aad ku xisaabtamayso oo runayso ninkani maanta codkay waxaan u siinayaa inuu wax ii qabto ilmahayga inuu waxbarashadii gaarsiiyo ilmahayga caafimaadkooda inuu ka warqabo aniga danteeda inuu ka warqabo amnigeena inuu ka warqabo waayo dhibaatooyin badan baa wadankii intan ugu haysta maadaama aan la noqonayn waxaa loo baahan yahay tasiilaadkii badnaa ee familku guryaha xaggooda guryaha aada ugu muhiimsan guryaha la degan yahay public house hadday tahay section 8 hadday tahay dadku waa ku dhiban yihiin marka sidiga ayaa ka caawinaya su-aashaada injineer ku soo laabanaa su-aasha tareenka baa la marin doonaa Istanbul aada xagga xaafadahan Sidar businessyo badan baa la doonayaa in laga kobciyo maxaa muu malayn kartaa dadka degan Soomaaliyeed waa dadka ugu badan dadka area degan sida Riverside area muu malayn kartaa in ajantaha uu jiro adeeg qarsan oo lagu barakicinayo dadka waaweyn sida xaafadahaas iyo picture ahaan loo arkin dadka lugeenayo bakooradaha wato dubabka wataan Soomaaliyeed inay pictureka quruxda magaalada areadan downtown ku dhow laga baahnayn oo business laga abuuray taa ma ka wareysaa wallahi horta sidiga dejinteeda nidaamkeeda hadda for example hadda waxaa mara Sidar waxaa dhex mara train dhinaca laga suubshay waxaa u dhaxaysa waqti waa la degan yahay way dhici kartaa intaa sheegayso waa markii la suubinayo trainka meelaha uu maray hadda kan la sii wado meelaha uu maray waxaa business badan baa seegay laakiin markii hadda la suubsho way soo noqonayaan sidigana sharci baa ka yaalo qofka markuu jid ka dhisto wadankani ma wadankii Afrika oo kale waxaan filayaa inuu xuquuq leeyahay insurance ku jiro in muddooyinka la suubinayana loo sheegayo waxoodana la siinayo hadhowtina ay u noqonayso business hadda Jarmalka oo kale magaalada dhex mara trainka magaalada bartankeeda dhex mara ganacsiga iyo wixii furan baski kala inta maraya marka midna way dhici kartaa in ujeedo laga wato oo ah in dadkii la barakicay laakiin I don't think uma maleynayo inay saas wado hadda waa bidacdii baa ku jirta isgaarsiintii baa ku jirta waa caalamku hadda uu hormaray tareenku aad u faa'iido u leeyahay basaskan istaageedu uu faa'iido ka leeyahay oo ka degdeg badan yahay ma yani tareen kuma aan oran laakiin waxaan ku yiri business ayaa la rabaa in laga abuuro marka meelaha guryihii ku yaalay in la wareegi doono ganacsiga seelada waaweyn laga furi doono taa future-ka ma noqon doontaa wallahi ma garan karo engineer ma ka garanayo run ahaantii markii ay dhacdo arrinkaas oo kale train markuu soo galo zone dad degan yahay ama deegaan ah run ahaantii waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo hearing waxaa loo yeeraa dadka zone-ka degan loo yeeraa marka loo yeero trainkaas inuu meesha marayo in kale in dadkaasi to ay u boodaan ay yiraahdaan ma ogoshihiin mise waa diidantiin so boqolkiiba 80 dadka inta badan waxay yiraahdaan waa ogolnahay sababtoo waxay ku fikirayaan inay gaaskii maartay insurance gaari ka bixinayaan si wax ay u safe gareeyaan tan kale opportunity-da qofka la soo doortay oo kale waxa isaga waajib ku ah in uu maartay dadkii isaga zone-kii soo doortay inuu balamiyo oo event sameeyo eventigaas la soo yimaado dadkii oo kale marka oo wareysto marka dadkii haddii dadkii hay ay ku codayaan oo yiraahdaan waxaan ogolnahay inuu tareenka soo maro markaas isaga maartay jawaabtii uu bixinay noqoto inuu dawladii dhexe ku noqdo ama sidii uu ku noqdo uu sheego uu yiraahdo dadka aniga zone-kayga degan tareenada labada dhinac ka maray way ogol yihiin guryaha iyo businesska zone-ka soo galayna haddii qoladaas ay dad Soomaaliyeed ay yihiin ama dad kale East African yihiin in qarashkoodii loo celiyo gurigii oo maartay la qiimeeyo isaga marka waxyaabaha isaga oo muhiimad u saarayo inay noqotaa si hadhoodi kalsooni buuxda uu helo shacabka oo hadhoodi mar labaad loo soo doorto marka mar walba maartay arrimahaas way yimaadaan wayna dhacdaa inta badan sida aan hadda u dulmaray waxaa maqaalahaas tareen kale laba tareen inay meesha mari doonaan mid kale lagu dari doono jaamacadda dhibaatooyin badan oo meesha iska ka dhacay taasi sidaa u dulmarteena waxa weeye qofka hadda loo doortay Cabdi Warsame in uu hor imaan doonaan
waa waxa ballaano soo socdo oo aan xoogaa aan wax ka maqalnay marka waxaan u gudbayaa doorashooyinka dad baa cusub waddanka ku cusub oo hadda citizen ka qaatay dadkaasi maxay u malayn kartaa maxay ka garan karaan miyaan u baahnayn in dadka wax laga dhaadhiciyo sida doorashada ay u dhacayso sida u codeyn karaan miyaanan ahayn in laga dhaadhiciyo la baro run ahaantii arrinkaas ninkan oo joogay judgeka arrimahaas aad igaaga sii fiican laakiin waxaan ogahay qofka waxyaabo badan uu soo maraa first day oo maaragtay oo citizenshipka aad qaadanayso waxaa jira registration ayaa jira oo qofka in uu maaragtay registration isku soo sameeyo ma fahamtay marka qofka markuu registration soo sameeyo waxaa imaanaya marka in ay maaragtay contact la soo sameeyaan si ay u arkaan qofka inuu registerki ku jiro in kale hadduu registerki oo yahay qofkaas qof registration ah oo registrihii ku jira marka waxyaabo badan loogama baahanayo ID iyo waxyaabo badan loogama baahanayo sababtoo su-aasha ugu horeysa oo la weydiinayo waxaa weeyaan magaca addresskaaga iyo last namekaaga iyo zip codekaaga noo sheeg way arkayaan marka kadibna qofkaas waxay arkayaan inuu citizen yahay oo uu vote gareyn karo marka miyaanan jirin tababaro oo loo furo hay-ado u qaabilsan inay tababaraan run ahaantii waxaa jira urur Soomaaliyeed oo maaragtay run ahaantii arrimahan aad iyo aad u mashquulsanaa muddooyinkii lasoo dhaafay hase ahaatee markaan fiiriyey waxaan arkayay dhowr goor hadda doorashadii dhacdoo kale waxay ahayd in dad is-sharxay oo markaa maaragtay oo aanan ku jirin maxay ahayd aan qabin endorsement oo DFL ay soo endorsement gareeyeen sida Cabdi Warsamo oo kale inay maaragtay u tageen ururkaas u tageen maaragtay iska soo diiwaan geliyeen ururkana uu yahay maxay ahayd urur shacabka Soomaaliyeed u adeega dhinaca registrationka ama ha ahaato sidii dadka loo voodi lahaa tusa run ahaantii ururkii la rabay in uu arrimahaas aad iyo aad ugu taakuleeyo ayaa caqabad wuxuu ku noqday dadkii DFL-ka ay soo endorsement gareeyeen sida Cabdi oo kale laba dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa ninkii Lilgram wuxuu sameeyey inuu ayaga la dilgareeyo oo lacag siiyo oo yiraahdo adinkana maaragtay noqda dad sida Cabdi oo kale u vooday si maaragtay device loogu sameeyo muxuu ahaa numberkii oo maaragtay Soomaalida loo dhabar jabiyay marka taasna wax faa'iido ah ma aha Soomaalida markii ayaanti dhaweyd halkan saardeeda koreysana waa aan ka hadlayay waxay ahayd qof walba oo maaragtay maanta damacsan inuu registration la'aan ama galo muxuu ahaa inuu u tartamo jagadaas waa sigis inuusan wax faa'iido ka helin sababtoo ah Cabdi Warsame ayaa endorsement-iga loo soo sameeyay annagana dhammaanteen waxay ahayd inaan isaga wada taageerno si kursigaas u gaaro isagana berito markuu arko qof kale Soomaali ah waxaa galaysa muxuu ahaa qiiro oo walaalnimo isagana maalintiisa qofkii uu caawinaya laakiin waxaa timi in dad ay damcaan inay dhabar jabin sameeyaan hase ahaatee waa ku guuldareysteen dadkii la filayay inay hadda aad i weydiisay ma jiraa dad training sameeyo vote sida loo voodayo ama dadka citizenka cusub tusa hay-addii ayaaba dhabar jabin sameynaysay oo Cabdi Warsame kusoo dab noqotay inay burburiso oo marka marka waxaa wanaagsan xataa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada magaalada jooga inay noqdaan kuwa midaysan iska warqaba hadduu qof annaga naga mid ah doonayo inuu cod gaaro ay maaragtay qofkaas endorsement ayaga xataa u sameeyaan hadda DFL endorsement u sameeyay Cabdi oo ah ururka ugu weyn ee dimuqraadiga ee Minnesota marka Cabdi inuusan marna u lus gareenin qof walba uu arkay marka 1 to 2 haduu 1 to 3 uu gaaray 1 to 2 iska daa rekoorka ugu sareeyay oo sidhiga hadda oo maaragtay laga soo galay isaga hadda haystay marka fiirso tan kale
waxaa kaloo jiray iyadana maxay ahayd arrin aad iyo aad dadka ay ugu fajiceen oo ah nin Soomaali ah oo maxay ahayd dhalasha waddankaan haysta oo maaragtay si degdeg ah Ward 6 ugu guuleystay si oo very easy ah qof walba maaragtay fantastic ay ku noqotay maaragtay waxaana keenay codka Soomaalida iyo sidee u fahmeen iyo sidee isku duubmeen ayaa abuurtay in Cabdi uu guuleysto marka walaashan iyadana way kamid ahayd marka si wareys iyada xogaal fiican iyo siyaa maadaama ay ku jirtay volunteerka Cabdi ay kamid ahayd iyo maayarka Sidi maayarka ee Betsy waa ku maasantahay injineer Daadiro waxaa hadda nala soo qayb qaadanaya barnaamijkeena kulanka sabtida Saciido ku soo dhawaw Saba TV waxoogaa yar waa naga soo daahday waxa ay Saciido ka qayb qaadatay dadkii doorashooyinka u campaign gareynaya ay ahayd waxaad ka aragteen filaya TV-da oo localka Kerry Level iyo maasha Allah barka waxa probably labada dhinac waa ku hirgashaan filaya dadka u campaign gareynaysay maxaa su'aasheedu waxay tahay maxaa kugu dhaliyay inaad kaalinta gashin oo campaign-ka u ordid inaad u istaagtid oo caawisid dadka bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsantahay Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay mahad ballaaran Allah soo suukan keenay meeshaan idinkana ku mahadsantiin invitation-ka ii soo sameyseen hana la iga raalahaado xoogaa soo yara daahay hawada iska yara qaab darneed maanta anyways question-ka ay weydiisay maxaa igu dhaliyay inaan campaign-ka aan ka qayb qaato runtii waxa waaye qof kasta oo wax garanaya ama damiir leh oo maxay ahayd kamid ah dadka bulshada weynta Soomaalida halkaan degan waxaa qasab ku ah inuu ka qayb galo wax alle wixii dantooda ay ugu jirto anaguna dadkaas kama duwani kolay anigu waxaan sidaan horan u sheegay meesha Cabdi waa uga horeeyay city commissioner ayaan ahay marka waxaa dhacda marar badan inaan waayo dad sideeda ila fahmaya ama aniga ii eg ama isku fahan aan nahay isku qaabnahay waxyaalo badan oo xasaasiyad oo aan rabo inaan wax ka qabto kaleeto aysan ii suurtagelaynin keligay marka waliba Cabdi oo kaleeto inaan helay nasiib ay aniga ii tahay inaan ku galaystana aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan ka daawanay shaashadaha localka TV-da localka waxaad dooratay oo kale Betsy oo ayadana guuleysatay aimkaas Betsy maxaa u taageertay maxaa u malayn kartay inay wax ka bedeli karto miya maxay ahayd sababaha waxa kugu dhaliyay taana ay balnoodan Betsy aniga shakhsi ahaan aan u aqaanaa muddo dheerna waan aqaanay waqtigii aan doorashada yani aniga point liigu sameynayna dadkii ku dadaalay inaan siriga tago ayay ahayd aqoon dheeraad hore ayaan u lahaa inta kaliya ma aha waxaan arkay waxyaalo badan oo wax ka qabatay runtiina waxyaalo badan marka ay familada ay ahaato arinta familada iyo qoysaska iyo dadka minority-ga ah waxaan dareemay ama aan ogaaday inay uga horeyso kuwa kale oo dhan number 1 waa qof dumar ah oo dumar waliba hooyo ah oo aad garanaysid ilmaha iyo horumarkooda sida ay u jeceshahay ilmaheedii baa kamid ah waa qof nala dhex degan oo magaalada dhex degan waa qof ninkeedu uu nin color yahay oo nin madow ah u dhashay ilmo waliba nin waliba very active ah u dhashay ilmo haddana waa qof ay ku dhex jirtay siriga whereas kuwa kale ay qaarkood meel kale ka imaanayeen ayadu way ku dhex jirtay circle-ka kamid ahayd waxyaalaha marka record-keeda aad fiiriso ay qabatana waxyaalo aad u fara badan waay waana xayna isku dayday inay dadka kamid noqoto waxay isku dayday meel kasta oo Soomaali taagan tahay inay kasbato mool kasta salaadka iid xataa waa dhex taagneed eventyada waa dhex taagan tahay yani waa qof adigii ku rabta oo u jeedid ayadoo waxa arkay ayadoo xataa xijaab bay xiratay markaan weydina maxaa u xiratay waxay tiri waxaan ku respect gareynayaa dadkan maadaama ay culture-kooda ay sidaa tahay ixtiraama u qabo ayaan u xiranayaa marka waxyaalo badan ayaad arkaysaa oo dareemaysaa waana ay naga kasbatay runta marka loo hadlo oo kulli ani shakhsi ahaan way iga kasbatay inaan taageerana waxaan ku jeclaaday iskuulka oo kaleeto waxbarashada education-ka aad ayay xoog u saartay
dadkan home ownerska oo kale xoog ayay aad u saartay economic inay soo celiso waba ka mid ahayd dadkii stateka lacagta dhammayda dhuntay meeyarka wax ka geystay ee soo celiyay ay ka mid ahayd marka recordkeedana waan arkay shakhsiyadeedana waan arkay saas ay ugu xambaartay maxaa aad kugu darnaam inta aad ku jirtay campaignka doorashooyinka caqabadaha ugu waaweyn wax ma nooga taaban kartaa ku saleysan jaaliyadeen runtii caqabad aniga shakhsi ahaan gaar ii taabatay ma jirto caqabadaha yani waxa community ka jiraan oo soo maray community-ga aniga kaliya shakhsi ahaan gaar iima ahayn صح bilmathalan oo kaleeto cabdi warsame waqtiga uu soo baxayay oo uu rabay inuu bilaabo waxaa dhacday in dadku in aad yani qofku waxaa la leeyahay meesha ma gaaraysid waqtiga ha iska dhuminin bahdil badan baa dhacaya anigoo kaleeto markii uu governorka uu imagacaabay oo jagada ii magacaabay dad badan waxaa surprise la noqotay adiga oo gabar ah oo xijaaban oo Soomaali ah oo minority ah jagada inta Alexey lagu dhiibay news markuu xataa ay wareysanayay waxyaalihii la weydiiyay kamid ah marka qofka in la bahdilo ama loo arko qofaan awood u lahayn ama waxaan aan ka soo bixi karin waxyaalahaas oo caqabada oo imaan kara waxaa ka bixi kara qof u dhabar adeega oo isagu isku kalsoon صح sidaas darteed ayaa waxaa dhacday cabdi warsame iyo groupkiisa oo hadda aan markii aan kamid ahaa inay u dhabar adeegeen oo dhahan you know what Rome maalin kuma dhismin wax walba waa loo dadaalay strategic iyo aqliga iyo maskaxda uu isticmaalan waxa meesha uu joogo maanta uu ku gaaray oo inuu redistricting sameeyo oo asagu uu kasbado waxa uu rabo inuu meel ku gaaro oo dadkiisii u xeelaysto oo ummadiisii uu asagu gacan ku dhigto oo qalbigoodii iyo heartigoodii uu kasbado from the ground up na uu sameeyo oo marka uu dadkiisii gacanta ku dhigay ummadii kale uu u gudbay waa wax aad u caqli badan oo ku taageerayaan ku jeclahay ilaahina la garab galo waa ku mahadsan tahay assalaamu calaykum kusoo dhawaad Saba TV kulanka sabtida waxaan jecelnahay magacaada inaad noo sheegtid waa maxay su'aashaada hello assalaamu calaykum hello assalaamu calaykum waxaan filayaa qofka inuu khad ka baxay haddii telefoonada waxaad ka soo wici kartaa numberka TV-ga yara gaabiya markaana soo wacdaan waxaad isdhegaysanina waxaan jecelnahay inaan sii wadano waa probably qofka waa hawadu ka baxay malaha waxa aan aad iyo aad uga helay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan doorashooyinka sano waa sano ay prepare gareysanaayeen oo sii diyaariyeen marka ma maleyn kartaa in every hadda bilaaw hadda inay tahay maxaa u maleyn kartaa oo rajaynaysaan in ay future-ka iyo sida ay noqon karto future-ka jaaliyadda Soomaaliyeed Saciid bismillah waxaan aan rajaynayaa hadda bilaaw way tahay laakiin hore u bilaabatay dad badan baa isku dayay waxay ka soo bilaabatay wardheere waxay ku Sadiiq ninka la yiraahdo Maxamuud Nuur yani ayagu waxay soo bilaabeen in la dareemo dad inay meesha joogaan marka ay intaas ay soo socdeen ayaa waxaa la soo gaaray waqtigii redistrictingka cabdi iyo groupkiisu inay si strategic ah waxa way dadka waxa qofka markuu maanta meel maro oo bari maro cabdi wuxuu kamid ahaa dadka u kaambeeyay cabdi maxamed nuur marka waxa maxamuud nuur aan dhahay marka waxa dhacday in bayf the way waxa la yiraahdo ama jidkii inay u baneeyeen maanta meesha aanu joogno cabdina meesha hadda uu taagan yahay maanta tomorrow dad waxa laga yaabaa asagu inuu si gudba ayaa laga yaabaa oo si raalahow waxaan qaadanayaa telefoonka waa sii wadi doonaa su'aashaada raalahow assalaamu calaykum hallo magacaaga walaal su'aashaaduna waa maxay hallo assalaamu calaykum hallo waxaan filayaa technical difficulty inay jirto inta la sameyn doono waxaa jecelnaa inuu ku soo celiyo qofka waa miskareen
maxaa tiri waxaa kasoo bilaabatay ninka la yiraahdo Wardheere waa ka warhayaa Wardheere waan wareysanay markuu sida mayorka u ordaayay waxyaalo asaga naftigiisa hataa waxa uu yiri waa jeclahay in aan ka qayb qaato aan ardaydiisii inay hadda ay sida media ugu sheegay dadka ma u malayn kartaa markaan inay more dadka meelaha waaweyn ee degan sida Riverside dhibaatooyin badan ka jirto inay hadda la garab gali doonaan qofkii loo doortay xaafadaas degmada صح وصح horta bahalka la yiraahdo community-ga Soomaalida waxa ugu jirta cibro Cabdi Warsame doorashadiisii sababtoo ah waxa dhacday in Soomaalida unify ay noqdaan dad unify ah oo hal ah oo aim leh ay noqdaan oo odayaashii iyo islaamihii iyo ciyaalkii dhalinyaradii ardada jaamacadaha ay yani kulligood si collectively ah community kali oo saa u soo baxa ma jirin waxa dareemaysaa marka dadka inay rabitaan ay jirto dhibaatooyin badan inay dibkii inuu karay dhibaatooyin fara badan ayaa jira oo waliba hadda dhibaatooyinka ugu badan oo community-ga haysta waxa waaye dhalinyaradii oo iyagu isdilaya oo maxay maalin walba dhaawiciisa iimaylkiisa loo soo sheegayo waxa dhacday marka community marka wuxuu dareemay dhibaatooyinkaas waxay kaloo dareemeen qof dhibkooda fahmay oo iyaga kamid ah oo la dareemay ma cid kale inay wax ka bedeli karin waxaan u soo laabanaynaa qadka telefoonka haddaan filayaa in aan furnay raala naga ahaadana technical darteed hallo salaamu calaykum kusoo dhawo Saba TV magaca su'aashaadana waa maxay walaal hallo su'aashaadana waa maxay walaal TV-ga yara gaabi ha is dhageysan walaal TV-ga hallo su'aashaadana waa maxay walaal السلام عليكم TV-ga yara gaabi ha is dhageysan walaal TV-ga hallo su'aashaadana waa maxay walaal السلام عليكم TV-ga yara gaabi ha is dhageysan walaal TV-ga hallo su'aashaadana waa maxay walaal hallo mana maqashaa hallo السلام عليكم waxaan hallo السلام عليكم mana maqashaa walaal khadka kalaan qaadanayna malaha qofka asaga TV-ga asaga is dhageysanay hallo mana maqashaa السلام عليكم عليكم السلام hadda waa ku maqalnaa su'aashaadu waa maxay walaal magacana magacaygu waxa la maxaa Cabdullaahi محمد عبد الله يوسف محمد kusoo dhawow Saba TV kulanka sabtida waxaan ka hadlaynaa doorashooyinka su'aashaada waa maxay soo dhiibo wallahi su'aashaydu marka ugu horeysa intaan su'aasha soo gudbin waxaan u tahniyeeyay gabadha halka joogta hawsha wanaagsan ay qabatay iyo iyadoo daayir sida ay codkarka u tahay iyo sida ay hawsha xilkadka u tahay iyo sida firfircoon ay u shaqaysay way ku maqashaa ya way ku maqashaa go ahead tahay oo aad baan kugu tahniyeeyay marka ugu horeeya marka xiga su'aashaydu waxay tahay ma maqashaa waa ku maqalnaa su'aashaydu waxay sidee uga gudubtay iyadoo marka hore u tagtay gobornarka iyo gobolka u gudubtay marka ugu horeysay iyo laftigeeda kusoo celi walaal waxaan ka fahmay anigu markii hore ma aqoonin gabadha historygeeda markii hore waxa jiraan anoo xijaaban oo gobolka ayaa waxa la gudbiyay shaqada gobolka ah oo gobernatoru siiyay oo dadku ila yaabeen anoo xijaaban anoo ka shaqeynaya gobornar xafiiska gobornarka ama xafiiska gobolka صح markii hore ku tagtay iyada laftigeeda anigu lama socon markii hore ما ogeyn yiri ma la socon sheekadeedii hore laakiin ogaaday way ku dhaafteen filaya okay su'aal waxay ahayd kaalinta ay ka qayb qaadatay ayadoo even
astaanta islaamka wadata bay ka hadlaysay inay dadku qaarkood uma leh ha marka waxyaalahaasi ka hadlaysay iyo dhibaatooyinka soo martay ha waxyaalaha marka su-aashaad waa maxay ما آذن فهمنا سؤال ويديي ومهتسن تهاي ومهتسن تهاي محمد ها عبد الله يوسف محمد عبد الله يوسف والله ومهتسن تهاي وان مقلي كل وحواي wax aniga igu gaar ahaa ma jirin Soomaaliya oo dhan ayaa u taagneed oo wax ka qabanaysay dadkaas ayaana kamid ahaa oo wax aniga waajib oo isaaran bay ahayd su'aasha ah yani hore umaanan ogeyn aad leedahay waxaa jirtay inuu governorka ii magacaabay Juvenile Justice Advisory Council waxa la yiraahdo oo ku saabsan juvenileka wana council hoos yimaada governorka intaas unba kulli waxa u maleynayaa aragti inaa fahanto waa mahadsan tahay okay waxaan qaadanaynaa telefoon kale magaca walaal aniga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdulqaadir waxaan ku magac dheerahay Ciro Saciida iyo Cabdikariim labadaba waa islaamaya waa ka qaadan salaam alaykum su'aashaan weydiinayo waxa weeye wuxuu ku saabsan tahay Betsy anigu wax badan kama aqaano laakiin saan maqlay Soomaalida aad bay ugu fuday marka maxay idila tahay bay Soomaalida u qaban kartaa yani waxa la socotaanba dhibaatooyin badan baa ina haysta carruurteennii baa islaynaya housing and magaranaysaa iyo employment discrimination problem badan baa ka jira magaalada maxay u qaban kartaa bay idila tahay gabadhaas maxayse ballan qaaday sax waa maasan tahay su-aashaada Ciro aad iyo aad okay waayo wuxuu ku yiri maxay gabadhan ka bedeli kartaa dhibaatooyinkan soo wajahay ee Soomaalida waan fahmayaa runta marka loo hadlo wadankan waxa wax lagu kala goostaa ama wax lagu kala gaaro af iyo gacan midna ma aha waa codka qofka inuu dhibto iyo in meelaha umadu ay isugu timaado oo ay ku gooynayaan arrimaha state-ka horumarkiisa oo kaleeta ah inuu qofku fadhiyo waxa dhacda marar badan meesha markaan fadhidid in waxyaalo community-gi dib ku hayo kaleeto hada adigu dadkii kamid tahay aadan u ogolaan leedahay waxaan community-ga anigu uma ogolay marka horta cod number 1 waxyaalaha aan dhiiban kari kamid yihiin number 2 waxay kamid yihiin dhibaatooyinka shakhsi ahaan community-geena haysta inaan diiradda ka qaado iraado dadkan ayaan kamid ahay dhibaatooyinka heesana waa dhibaatooyinkan maxaa ka qaban kartaan misaal hadaan ku soo qaado ayaamahan sida ula socteen dhalinyarada dhibaatooyin badan ayaa ka jirtay marka waxa dhacday maalin dhaweyd meeting-keena hadda executive-ka markaan isku nimid inaan uga hadlay dhibaatooyinka arinta Soomaalida ilmaha haysato dhinaca state-kana waan kala hadlay dhinaca city-kana waan kala hadlay waxa dhacday marka commission meeting-ka hadda ugu dambeeyay city-ga aanu sameynay in maxay ahayd aan saari miisko iri sidee bay ku dhacday in maalin walba ilmo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed laga oohiyo oo cunug Soomaaliyeed meedkiisa aanu helno maxay dasiriguna samida kaleeto wax uga qaban laadahay waxa dhacda hadii ka soo qaad qof cadaan oo kaleeto ama wax ay ku dhacaan in magaalada dhan ay kacdo college-yada in loo xiro TV-yada dhan inay qabsadaan anaga ilmaheenu ay maalin walba ay dhimanayaan cid ka hadlaysana aysan jirin because anaga ayaa ka seexanay marka meeshaas fadhiga aan fadhiyo waxa way codkiini ayaa meesha yaala wax aniga shakhsi ahaan ii gaara ma jiraan laakiin waa arintaas wana ku mahadsantahay iyo ku waxyaalo kale badan oo halkan aan ku soo koobi karin waa ku mahadsantahay jawaabtaada waxa qaadanaynaa qadka telefoonka ku soo dhaw salaamu calaykum magaca walaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waa maxay su-aashaada walaal su-aasheedu waxa weeye hadii kor waxa laga hadlaa caruur Soomaaliyeed oo istishan ama la yiraahdo caruurteennii dhibkaas haysta iyo qadar baa la yiraahdaa walaal qadar aa kusoo dhaw marka Saciido oo kale waxaan weydiinayaa maadaama ay qof fircoon ay tahay aadna maaragtay aan ugu tahdiyanayo laga yaabo caruur baa laga hadlaa in sidii wax loo qaban lahaa isdilkooda iyo dhibka ay si dhigay waxaas baa laga hadlaa waalidiinta caruurtan dhashay iyo kuwa qariban iyo kuwa hadda soo socdayna waxa kan galaanba yani doorashooyinka oo kan bageynaa waqti baan gelinaa in aan la codeeyo in waalidiinta iyo dadka hawsta ku haysta cunuga xun iyo magiciisiga in loo kaambin gareeyo Soomaaliya aan isku nimaano sidii cunugan wax loogu qaban lahaa ama wax maartay wax la isugu sheegi lahaa aan isku nimaano waa ku fahmay dalka ma loo kaambin gareyn karaa inaan Soomaaliya isku nimaano had iyo goor guryahan garaacno ayaan kaalin aan ka shirno danayna
waa mahadsantahay khadar waa ku maqal walaal horta runta marka loo hadlo wax walba waxaa fiican in la dareemo guntooda iyo root cause waxa la yiraahdaa wax walba dhibaato kasta waxbaa bilaaba waxbay salka ku haysaa inaynu dareeno waalid maanta u taagan inuu ilmihiisu ay xumaadaan ma jiro waalid kasta wuxuu ku dadaalaya ilmihiisu ay u wanaagsanaan lahaayeen laakiin dhibaatooyin ama circumstances badan oo jira ayaa waxay suurto gelinayaan ilmihii inay ka dhacaan qadka ka dhacaan su-aasha ama loo campaign kareyn karaa wax ma loo samayn karaa dabcan waa su-aal muhiim ah oo u baahan inaanu dareeno waalidiintu dareemaan in fact saacadaas aan kula hadlaayo waxaa la iga yeeray eventi kaleeto oo ay soo abaabuleen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo ay u bixiyeen hala joojiyo dhibaatooyinka ilmaheena lagu hayo oo ilaa iyo boqolaal dhalinyaro ay soo abaabuleen marka taas waa campaign jira oo hadda socda in laga garab qaato oo dadkii waayeeladii iyo dadkii wax garadka ahaa ay dhalinyaradaas maanta dareentay u istaagtay dhaxanta taagan ay wax kala qabtaan arrin aad u muhiim ah marka arrintu way jirtaa oo waa lagu tala jiraa aniga shakhsi ahaan waa dadkaas baan kamid ahay keligay baan ahay codkayga iyo wixii aan awood ahaan dhinaca kale uga keeni karo diyaar baan lahay projecti waxaa jirtay aan soo wado insha Allah oo kol starter biyinka dadkii akhristay way arkayaan aan ugu talagalay youthka center youthka uu leeyahay oo weyn oo ilaa iyo 46 milyan ah oo maxay insha Allah kulli qofkii starter biyinka galo uu arkaya soo socota taasna youthka ayaa loogu talagalay insha Allah waa kuma saddex qadar waxa qaadanaya qalad telefoonka salaamu calaykum calaykum salaam waa anigii raaliga hada anigii ku soo noqday weey su'aasheeda aniga waxaan maayna misunderstanding yar baa jiray waxaan anigu su'aasheedu waxay ku saabsanayd about Betsy qofka maayarka gabadha maayarka loo doortay oo su'aasheedu waxay ahayd maxay ballan qaadina Soomaalidu u qabanayso maxay u qaban kartaa arrintaas aan rabeen ogaal maadaama ay Siciidu ay tiri aniga qofka ku dhawaa aniga ma garanaysaa la shaqeeyay maartaya arrinta su'aasheedu xaggaas ku saabsanayd raalna laga hadaya dhimala khadar waa mahadsan tahay su'aasha raallo ma ana fahmin waxaan moodaa aniga ina iga wadid laakiin hadaa ka wadid Betsy waxa waaye waxay haystaa record weyn oo diyaarsan waxay soo qabato hore u soo qabatana waa la yaqaanaa bilmatalan oo kaleeto hadda aniga centerkan aan rabo youthka inaan u sameeyo kaleeto waxyaalihi ay naga ballan qaaday ay kamid ahaayeen waana waxyaalaha aanu la tagayna miiska oo lana maadaama aad ballan nooga qaaday waa kanaay waa inaad youthka dhalinyarada dhibaatooyinkan aad u fara badan ayaa haysta nin walbana agenda ayuu la yimid aniga shakhsi ahaan agendooyinkii markaan fiiriyay gabadha agendaday wadatay aad ayay qancisay waxyaalo badan oo hore u qabatana waan arkay waana la soo shaqeeyay waana la fariistay meeting badan baan kala qayb galay qof aan ku kalsoonahay waaye waxbarashada ayaa kamid ah waxyaalaha ay ballan qaaday dadkan community-ga dhibaatooyinka iyo codkooda NPR kamaan dhaweedo laga wareystay su'aashii la weydiiyay community-ga maxaa u qabanaysaa waxay tiri waxaan marka ugu horeysoon xafiiska tago 100 maalmood oo ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku dhaqaaqo wixii Soomaali community aan ka ballan qaaday starter hadaa gasho NPR ka way ku jiraa marka we will see insha Allah waad ku maasantahay Siciido hawlaha badan aad ka shaqamisay waxaan filayaa Betsyna in ay ka dhidi doonto arrimaha looga fadhiyo ilaahay hadduu yiraahdo waxaan jecelnahay in marnaba aan Soomaaliya in marnaba aan ka marnayn in codkaada aad kula xisaabtami kartidna waxaad u bixisay in ku dadaal ilaahay ka marnayn galo waxaan qaadanaynaa break hadda waxaad ku soo dhawaataan maxamed baa noo xulaya hadda waad ku mahadsantihiin barnaamijka waqtigeeni oo noo masaabaxaynin aan sii wadi doonaa barnaamijyadan sidaan oo kale waxaan jecelnahay inaan ku falqeyn doono jaaliyadda arrimaha jaaliyadda Soomaaliya wax badan baa ka kala daadsan marka waxaan dhihi lahaa qof walba u istaag dantaada iyo danta guud waxaa ka hormaraysaa danta guud anagu waxaan ku soo kornay iska wax u qabso marka waa maasantihiin injineer Daadirow waxaan filayaa barnaamijka qaybta kala gali doona ilaa durada hadaa waqti noo haysid doorashooyinka ka dhacayo Puntland maxamed Tamiir ayaan daadihin doonana waa maasantahay Saciid Shaaciye iyo Cabdiqaadir injineer Daadirow محمد هذا waxaan ku wareejinayaa محمد علي نير دادرو محمد هذا waxaan